saaxiib yaal walaalkiin Adam Nur Xasan waxaad soo dhawaatiin kanaalkan Muuqaal Production insha Allah maanta barnaamijkeena diyaarleen waxaan rabaa inaan la wadaago qaabkee loo sameeyaa qoraaladan badankiin aad ku aragteen telefishinada qoraalka qaybta hoose ee muuqaalka midigta ka soo galay ilaa iyo bidixda u dhamaanaya waxaan rajaynayaa dhamaantiin aad wada fahanteen waa qoraalada qaabkan animationka oo socodkan sameeynaya qaabkee loo sameeyaa marka insha Allah muuqaalkan maanta aynu ku baran doonaa inuu gudgalno barnaamijkeena ugu horeyn intaynu gudgalin barnaamijkeena waxaynu ka codsanayna kanaalka Muuqaal Production hadii aad ku cusub tahay fadlan subscribe saar videogan like muuqaalka waxa uu badan ay u tartaa YouTube-kan dad kale ay sii gaarsiinayaan qoraalada oo animationka ay isticmaalaan qoladan TV-yada waxaynu ku sameyn doonaa programkan Camtasia aynu ku sameyn doonaa ugu horeyn waxa drag and drop ku soo sameeysaa muuqaalka aad u baahan tahay inaad u sameysid text animationka oo nooca oo ay isticmaalaan TV-yada ani hadda waxaan drag and drop ku soo sameeyay sawir and drag and drop ku soo sameeyay kadib sidoo kale waxaad sameynaysaa waxaad soo diyaarsanaysaa qoraalka aad u baahan tahay inaad ka dhigtid marka animationka dhanka leftiga ilaa right-ka u dhamaan ama midigta uu ka soo galay ilaa iyo bidixda u dhamaan qoraalka aad diyaarsan doontaa ani hadda meeshan waxa diyaar igu qoraal aan soo diyaarsaday sidoo kale waxaad u baahan tahay rectangle aad u baahan tahay rectangle-ka si aad u soo furatid waxaad imaanaysaa qaybtan annotationska sidoo kale qaybtan waxaad imaanaysaa shapeska black-ga iyo white-ka midka aad u baahan tahay waad soo qaadan kartaa aniga midka cadaanka aan soo qaadaya hadda kadib waxaad sameynaysaa intaad u baahan tahay qoraalkaaga ayaad waxaad ku sameynaysaa ama muuqaalka aad leekaysin kartaa rectangle-ka ama intaad u baahan tahay in qoraalkaas aad ku sameysid drag and drop ku sameynaysaa sidoo kale waxaad sameyn kartaa rectangle-ka aad sameysay waad soo yareyn kartaa marna waad weyneyn kartaa size-ka rectangle-ka marka size-ka intaan aan u baahanahay hadda marka waxaanu sameynaynaa white-ga aan ka bedelay hadii aad u baahan tahay color-ka cadaankan waad isticmaali kartaa qaybtan waxaad imaanaysaa properties-ka qaybta khaas ahaan fill-ka aad imaanaysaa kadib cadaanka aad soo furaysaa color-ka aad u baahan tahay meeshan ka dooranaysaa kanada color-kan aan ka dooranaya sidoo kale adigoo jooga qaybtan annotationska waxaad soo furtaa qaybtan qoraalka aad soo furaysaa waxaad drag and drop ku soo sameeysaa qoraalka aad drag and drop ku soo sameynaysaa qoraalkaaga iyo sidoo kale shape-ka aad sameysay aad isleekaysiinaysaa intaad u baahan tahay inaad qoraalka aad ku sameysid animationka qoraalkii ku diyaarsanaa ugu horeyn qoraal soo diyaarso ama meeshan waad ku diyaarin kartaa ani hadda qoraal aan hore u soo diyaarsaday aan u baahanahay animation inaan ku sameeyo kadib qoraalkayga meeshan aan ku baastigareynaya sidoo kale qoraalka hal leen ayaa looga baahan yahay halka leen ayuu aad ugu qurux badan yahay marka hal leen ayaad ka dhigaysaa sidoo kale qaybtan hadii laba leen uu ka noqdo qoraalku weyn yahay qaybtan size-ka aad xoogaa yareynaysaa ilaa iyo hal leen ka dhig hadii aad u baahan tahay laba leen waad isticmaali kartaa marka halka leen ayuu aad ugu qurux badan yahay sidaan oo kale ayaad qaybta hoose u keenaysaa qoraalkaaga hal leen markaad ka dhigtid ugu horeyn marka intaadan animationka aadan ku sameyn qoraalkaaga markaad hal leen aad ka dhigtid qoraalkaada qaybtaad u baahan tahay ugu horeyn inuu ka soo galo muuqaalka ama bidixda ama midigta ayaad u bixinaysaa qoraalkan aad waxaan u baahanahay qaybta midigta hadii inuu ka soo galo midigta aan banaanka u bixinayaa kadib waxaad imaanaysaa qaybtan midigta si fiican iskaga fiiri qoraalka all the way inuu banaanka uu jiro sidoo kale qaybtan waxaad imaanaysaa animationka aad imaanaysaa zoom-ka ma ahan qaybtan animationka ma custom animationka aad drag and drop ku soo sameynaysaa kadib waxaad keenaysaa qaybta ugu horeysa aad keenaysaa animationka madaxiisa adigoo jooga markuu guduud uu ku yahay qoraalka aad waxaad u sameynaysaa marka dana dhanku ka soo galay ma ahan dhanku u dhamaanaya asigoo dhan ayaad banaanka u bixinaysaa banaanka markaad u wada bixisid animationka waxaad sameynaysaa marka waad kala jiidaysaa animationka intaad u baahan tahay qoraalkaas inuu ku socdo muuqaalkaaga gudihiisa marka hadda intaan oo kale hadda waynu ku fiirinaynaa bilay markaan dhaho hadda muuqaalkan qoraalkan wuxuu ka soo gali doonaa dhankan aad u jeedin oo midigta ugu horeyn aan banaanka u bixiyay oo u jeedin aan filayaa qoraalkan hadda qaabka waxaan u sameynay TV-yada oo kale aynu sameynay marka hadii aad u baahan tahay duration-kana waad badin kartaa waad yareyn kartaa duration-ka wuxuu kugu xiran yahay adigoo animation-kan hadii aad soo yareysid oo kale si speed la ayuu ku soconaya qoraalkaaga lama akhrin karo marka hadii aad u baahan tahay qoraalkaaga qof walba inuu akhriyo waxaad sameynaysaa animation-ka aad kala jiidaysaa hadii aad u baahan tahay si speed la inuu ka soo galo oo kalena animation-ka aad waxaad ku sameynaysaa waad soo aruurinaysaa ama waad yareynaysaa hadii aad u baahan tahay si degan in loo akhriyana animation-ka aad kala jiidaysaa hadda waad u jeedinayaan filayaa si tartiib leh ku soo galaya qoraalka marka qoraalada noocan adigoo isticmaalaya programka Camtasia qaabkan ayaa loo sameeyaa oo animationka sidaan ayaa loo sameeyaa waxaan rajaynayaa dhamaantiin muuqaalkan inaad ka wada faa'iideysateen oo walaalkiin Adam Nur Xasan oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh